halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA. waa 13 bisha Sebtembar sanadka 2019 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban iyo efemyada magaalooyinka qari iyo bogeen internetka ee voasomali.com. saacadda Afrikada Bari waa 4 galabnimo. idaacadda waxaa idin daadahinaya anigoo Xuseen Barre iyo Sahre Ciidano. barnaamijkaasi galka baarista halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee VOA. dadka qaba baahiyaha gaarka ah ayaa dalbanaya dhisidda hay-addii naafada qaranka ee labada gole baarlamaanka ay hore u meelmariyeen. madaxweynaha soomaaliyana uu saxeixay sharcigeedii sanadkii hore. cabdulqaadir maxamed cabdulle ayaa warbixintan inooga soo diray muqdisho. 31 Diseembar 2018 madaxweyne maxamed cabdulaahi ayaa qalinka ku duugay sharciga dhisidda hay-adda naafada qaranka. dadka qaba baahiyaha gaarka ayaase weli isweydiinaya maalmarsiinta sharcigaas oo hadda hor yaala wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka. aadan xasan cali gudoomiye ku-xigeenka golaha naafada ayaa cabashadiisa ka sheegay muqdisho. waxaan rabnaa hay-addii naafada qaranka oo madaxweynaha uu saxiixay bishii Diseembar 2018 xaggee ku dambaysa hal sano ayaa laga joogaa. kow midda labaad ahdiga qaran midoobay caalamiga ah la saxiixay in la hirgeliyo ayaan rabnaa. naafada Soomaaliyeed wax daryeel ah ma haysato. waddanka waxaa yimaado macaawino xilligii Tarzan uu joogay wixii ka dambeeyey koob macaawino ah kama helin. aadan xasan cali gudoomiye ku-xigeenka golaha naafada qaranka ayaa u sheegay VOA ilaa ay hadda inaysan jirin wax la meelmarsiiyey tani markuu saxay madaxweynaha sharcigan oo soo maray labada gole sharci dejineed. maxamed siidow wuxuu ka mid yahay dadka u dhaqaaqa arrimaha naafada gaar ahaan golaha naafada qaranka. wuxuu sheegay dadka inay sameeyaan isku soo baxay ku dalbanayaan meelmarsiinta shuruucda caalamiga ah ee hor yaala dowladda Soomaaliya, sharciga hay-adda naafada qaranka ee madaxweynuhu saxay iyo sharciyo kale oo muhiim u ah nolosha dadka baahiyaha gaarka qaba. waxaan maanta isku soo baxnay banaanbax nabadeed aan dalbanayno xuquuq laga maqan oo naafada. waxaan xukuumadda Soomaaliyeed bishii Diseembar 2018 ay ansixisay xuquuqda naafada Soomaaliyeed. ilaa haddana wax aan natiijo ahaynna ma laha, waxna daryeelayo ma laha. cabdullaahi xasan xuseen oo ka mid ah dadka qaba baahiyaha gaarka ah muddo dheerna ka soo shaqeynaya doodida xuquuqdooda ayaa u sheegay VOA inay jiraan culaysyo u gaara dadka qaba baahiyaha gaarka xilligan. tan iyo markii uu qaraxii ka dhacay aqalka dowladda hoose lagu dilay duqii Muqdisho iyo mas'uuliyiin kale. wuxuu sheegay in qaraxaas ay fulisay haweeney qabta baahiyaha gaarka ay keentay in culays gaar ah hadda uu soo food saaro. dhibaatadii ka dhacday gobolka Banaadir dadka naafada waxay cadeynayaan in ay bari ka yihiin shaqana aysan ku lahayn, ay yihiin dad shacab ah oo u baahan dawladda caawinaadeeda, bulshada Soomaaliyeed caawinaadeeda. waxaan ka codsanaynaa in dadka naafada laga daayo shabada xaqdarrada ee lagu shabadanayo ee lagu cabsiinayo. sharciga dhisidda hay-adda naafada qaranka waxaa qalinka ku duugay madaxweyne maxamed cabdulaahi kadib markay ka soo gudbeen labada gole sharci dejineed, waxaana ilaa ay hadda looga fadhiya hay-adaha dowladda meelmarsiinta sharcigaasi. cabdulqaadir okey VOA muqdisho.